maanta oo ah 25 Juun waa maalin loo asteeyay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga ku dhimashada biyaha. Magaalada Muqdisho ayaa laga xusay markii ugu horeysay waxaa ka soo qayb galay waalid dhalinyaro iyo tababarayaal markaasi ku xeel dheer arrimaha dabaasha. Maalinkan ayaa waxaa looga gol leeyahay si markaasi loogu wacyigeliyo waalidiinta, carruurta iyo dhalinyarada isla markaana loo yareeyo ilmaha markasta ku dhimanaya biyaha. Maama Caasho Geestiir oo ah khabiir arrimaha dabaasha isla markaana barnaamijkan soo agaasimtay ayaan wax ka weydiinay muhiimadda maalinkan. maanta waxay ku aadan tahay maalinta caalamiga ee ka hortagga hafashada. ka hortagga hafashada runtii waxaa la bilaabay 2021 UN-tana ay ogolaadeen caalamka oo dhan. waxaa la fiiriyaa inta qof ee badaha ku dhamaaday runtii tiro aan xad lahayn waaye ilaa 300-400 kun oo qof hafasho kaliya ku dhimato. markii lagu hafaayana badda kaliya ma aha, laakiin webiga barkadaha biyaha ku jiro ma aragtay haddaysan lahayn dad ilaalo ah, dadka aan dabaasha aqoonin ama haddii iigoo yaqaanaha xataa waxaa dhici karta stroke inuu jiro ama wax kale. Waxaan wareysanay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay barnaamijkan anagoo weydiinay muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada maalinkan. runtii wax weyn ay iga dhigan tahay inaan maanta goobjoog ka ahay maalin loogu dabaaldegayo maalinta caalamiga ee ku hafashada biyaha. dumarka Soomaaliyeed daalaan muhiim ay noo tahay inaan barano xirfadda dabaasha. Sidoo kale waxaan goobta ku wareysanay mid ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay barnaamijkan. maalintan waalid ahaan maalin weyn oo arkaa waxayna noo tahay maalin macnaha waa maalintii koowaad oo barnaamijkan lagu qabto meeshaan gobolka Banaadir. waxaan ugu mahadcelinayaa tiimkii dhammaay oo soo qabanqaabiyay in barnaamijkan quruxda badan oo dhaco si waalidiinta ee macnaha ee wacyigelin ugu noqoto ubadkoodana ay ugu wacyigeliyaan ku dhimashada biyaha. Maryan Ladan Xuseen, Bilan Media, Muqdisho.